بعضها سخريا ورحمة ربك خير مما waa arrin lagu tilmaami karo inay tahay mid mucjiso ah oo ka dhacday magaalada Hargeysa. Hotel dhabarka ku haya laba masaajid oo waaweyn ayay isku dayday in show iyo heeso ay ku qabsato, laakiin waxay kala kulantay arrin aad ay ula yaabeen dadkii deegaanka. Fanaanada caanka ah ee King Jaamac Yare howl weyn oo ay ku qabsanaysay show ayaa mar qura laga dhex maqlay aayadaha Quraanka Kariimka qolkii eebe oo cod sare ku baxaya. haddaba intaasi kadib maxaa dhacay ma qabsoomay showgii King Jaamac maxaysa yiraahdeen dadkii deegaanka iyo sidoo kale maamulkii deegaanka halka uu hotelka ku yaalay. Muuqaalkan ayaan kugu soo gudbin doonaa dhacdadaasi oo faahfaahsan. inta muuqaalkaadi bilaaban marka hore waxaan ka codsanayaa in muuqaalka leeg aad noo saarto si saaxiibo fara badan uu gaaro arrinkan ay ula socdaan. Ha iloobin haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirto aad ka mid noqoto bahdeena channelka Wadac Media, subscribe noo saar, sidoo kalena saaxiibada la sii wadaag muuqaalkan. dadka islaamkii fawaaxishka amar bil macruuf waxaan leenahay waxa fawaaxishkaana laga suuliyo ma hodelkaasi wuxuu ku yahay xaafada Said. waxay ahayd dhacdo aad loola yaabay oo ka dhacday magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. Hotelka caanka ah ee Jumeirah ayaa waxa show ku qabsanaysay fanaanada caanka ah ee King Jaamac. fanaanadan oo eedeymo kala duwan oo waaweyn kala kulantay dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa dhowr jeerna isoo istaag lagu sameeyay showyo ay doonaysay in magaalada Hargeysa ay ku qabsato. laakiin dhacdada cajiibka ah ee dadku aadka ay ula yaabeen ayaa noqotay markii showgii heesaha ay ka socdeen iyo lagu xafladeynayay mar qura laga dhex maqlay aayadaha Quraanka Kariimka oo cod sare ku baxaya. بعضها سخريا ورحمة ربك خير dhawaan ay ahayd markii uu dagaal xoogan soo kala dhex galay iyo muranba dadka degan meelaha ka ag dhow hotelka Jumeirah, waxaana dadka intooda badan ku doodayeen in hotelkan maadaama masaajid ay u dhow yihiin aan lagu qaban wax show ah iyo sidoo kale wax heeso cod dheer oo ku baxaya. laakiin arrinta waxa ay markan noqotay hotelka Jumeirah oo heeso ay ka shidan yihiin sameecada waaweyn laga daaray iyo sidoo kale masaajidadii ka ag dhawaa oo iyaguna banaanka soo dhigtay sameecado Quraan halkaasi ka shiday oo cod dheer iyaga markooda maqashiya dadkii xafladda ku sugnaa. haddaba intaan idin soo gudbin waxa arrintan salka ay ku hayso iyo sidoo kale arrinta ugu weyn ee ka dambeysay in fanaanada King Jaamac oo dhawaan show weyn ku qabsatay magaalada Hargeysa ay mar kale showgan ku qabato magaalada Hargeysa waliba meel u dhow masaajidyo oo muuqaalkan aan kugu soo gudbin doono. aan daawano muuqaalo ka kooban oo laga soo duubay intii arrintu ay socotay una dhaxaysay masaajidka ku ag dhow hotelka Jumeirah oo laga dhex maqlay heesaha iyo sidoo kale hotelka Jumeirah oo xafladda ay ka socotay oo laga dhex maqlay aayadaha Quraanka Kariimka. بعضها سخريا ورحمة ربك خير arrinta sida weyn loola yaabay ee dadku ay hadal hayaan baraha bulshadana lagu soo qorayo ayaa ah in masaajidka iyo hotelka ay dhabarka isku hayaan, sidaa darteedna sameecadaha masaajidka oo Quraanku ay ka shidan yihiin waxaa laga dhex maqlayaa hotelka halka heesaha hotelka ka daaranna laga dhex maqlayo masaajidka. haddaba maxaa dhacay intaasi kadib markii sheekada halkaas ay mareysay? wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa waxa ay amar siisay maamulayaashii masaajidka iyagoo ku amray in ay damiyaan gabi ahaanba sameecadaha ay daareen kuwaasoo laga dhex maqlayay howlka uu ka socday showga fanaanada King Jaamac si ay showgeeda fanaanada u sii wadato. arrinkaas oo qudhiisa hadalhayn fara badan ka dhaliyay guud ahaan magaalada Hargeysa iyo sidoo kale baraha bulshadaba. labada masaajid ee hareeraha ka xiga hotelka Jumeirah oo ah goobta showga ay ku qabsanaysay fanaanada King Jaamac Yare ayaa waxa xiriir la soo sameeyay wasaaradda diinta iyo awqaafta iyagoona ku amray in ay damiyaan sameecadaha banaanka ay ka shideen kuwaas oo ay ka daareen aayadaha Quraanka Kariimka. wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa waxa la sheegay in xiriirka ay la soo sameysay maamulka masaajidada jaarka la ah hotelka Jumeirah ay ku amartay una sheegtay in si degdeg ah ay sameecadaha Quraanka ka shidan yahay qolkii eebe ay damiyaan halka la ogolaado in howlka ay ka sii socdaan heesaha sameecadaha waaweyn laga daaray.
waxaana arrinka uu noqday in sidaasi looga heliyo qur-aankii kariimka iyo masaajidadii oo maamulkii masaajidada ay iyagoo cabsanaya go-aan ku qaateen in gebi ahaanba ay baktiyaan ama ay damiyaan sameecadihii waaweynaa ee qur-aanka ay ka daareen halka uu sidaas uu kusii socday showga fanaanada King Jaamaca oo showgeeda labaad lama oga sababta dhabta ah ee ka dambeysay in wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ay ku amarto maamulkii masaajidada ka agdhawaa hotelka Chomera in ay damiyaan qur-aankii ka shidnaa masaajidada sidoo kalena la ogolaado in showga uu sii socdo heesahana ay sii daaradaan balse dadka arrimahan ka hadlayay ayaa shaki weyn geliyay in dadkii ka dambeeyay in showgan lagu qabto hotelka Chomera oo daris la ah masaajido inay la soo xiriireen wasaaradda diinta iyo awqaafta una sheegeen in laga damiyo masaajidka qur-aanka si heesaha ay u sii socdaan haddaba maxay tahay sababta fanaanada King Jaamaca ay showgii labaad oo xiriir ugu qabsanayso isla magaalada Hargeysa gudaheeda dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in showgan dambe ama kan labaad ee hadda lagu qabanayo hotelka Chomera uu yahay mid laga soo shaqeeyay dad kalena ay gadaal ka riixayaan sidaa darteedna ay fanaanada ku qasbaneed in ay showgeeda ku dhigto hotelka Chomera oo horey dadka dariska la ah hotelkaasi ay dhowr jeer uga digeen hotelka in aan lagu qaban heeso iyo sidoo kale show fanaaniin ay dhiganayaan maadaama hotelku uu daris la yahay masaajido howl halkan ku yaala oo night kilaaba oo xaafadii ay habeen iyo maalin ka seexan weyday ayaanu gudbinaynaa ciddii ku xaq leh in nalaga xidho oo nalaga qabto oo la yiraahdo Chomera ayaanu aad iyo aad uga cabanaynaa waxaanu xukuumadda leenahay hana laga soo gaadho dhalinyartii iyo bulshadii meeshan way fasahaadisay fanaanada King Jaamac ayaa kamid ah fanaaniinta ka tilmaaman saaxada fanka Soomaaliyeed iyadoo ku caanbaxday in marka heesa ay soo qaadayso ama showyo ay qabsanayso in ay u soo libisato sida haweenka reer galbeedka ee diinta islaamka aan haysan waxaana inta badan lagu eedayaa in ay tahay fanaanad aan asturnayn sidoo kalena si ka duwan sida hablaha kale ee Soomaaliyeed ee fanka kula jira oo libisata ama u soo bandhigta jirkeeda qeybaha ugu muhiimsan sababta ugu weyn ee arrinkaas uu sameynaysa ayna dadka fanka Soomaaliyeed ka hadla ku micneeyaan in ay tahay in heesaheeda ay noqdaan kuwa si weyn loo daawado ama ay ku soo xirmaan dad aad u fara badan oo gabadhaasi haddii aysan codkeeda ku taageerin xitaa ku taageerayo jirkeeda intaas ayaan doonayaa in muuqaalkan aan uga hadlayay dhacdadii ka dhacday Hargeysa iyo showgii King Jaamac sababta ugu weyn ee arrinkaas uu sameynaysa ayna dadka fanka Soomaaliyeed ka hadla ku micneeyaan in ay tahay in heesaheeda ay noqdaan kuwa si weyn loo daawado ama ay ku soo xirmaan dad aad u fara badan oo gabadhaasi haddii aysan codkeeda ku taageerin xitaa ku taageerayo jirkeeda intaas ayaan doonayaa in muuqaalkan aan uga hadlayay dhacdadii ka dhacday Hargeysa iyo showgii King Jaamac iyo arrintii qabsatayba intaas ayaan doonayaa ku soo gabagabeeyo haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biirahay loobin in muuqaalkan aad like noo saarto maasin